waxaa hadda heer gabagaba maraa dhismaha dugsiga hoose oo laga dhisay tuulada Tabeelaha Maame Cali oo hoostaga degmada Walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose kaasoo dhismihiisu soo bilowday bishii Maarso sanadkii 2017. Dhaqaalaha ku baxaya dhismaha iskuulka ayaa waxaa bixiyay jaaliyadda reer Tabeelaha Maame Cali oo ku sugan dalka dibadiisa si ay waxbarasho u helaan dadka ku sugan Tabeelaha Maame Cali oo hoostaga degmada Walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Shacabka ku sugan Tabeelaha oo isku jira dad aad u fara badan ayaa soo dhaweeyay dhismaha dugsiga, iyagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in haatan ay helaan goobo ay caruurtooda wax ku baran lahaayeen. Waxayna u mahadceliyeen jaaliyadda reer Maame Cali oo ku sugan dalka dibadiisa qayb weyn ka qaatay dhismaha iskuulka. Dhanka kale, jaaliyadda reer tuulada Tabeelaha Maame Cali ayaa iyana dhankooda waxa ay ku dadaaleen sidii ay u dhameystiri lahaayeen dhismaha iskuulkan oo ay wax baran karaan oo haddii ay wax bartaan wax badan ka bedeli karaan dadka ku nool tuulada Tabeelaha Maame Cali. Hussein Maxamed Sheekh Xasan waa shakhsi si weyn gacan uga geystay dhismaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Maame Cali, waana nin ay iloobi doonin bulshada tuulada Tabeelaha Maame Cali oo isla markaana taariikhda ay xusi doonto. Ugu dambeyntii, iskuulka ayaa lagu wadaa in uu soo gabagaboodo isbuucyadan lagu jiro. Abdiraxmaan Cabdullaahi Deelaal, degmada Walweyn, gobolka Shabeellaha Hoose.